gudoomiyaha bangiga dhexe gudoomiyaasha bangiyada dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb galaya maarayaasha iyo inta ka soo qayb gasoo dhan waxaan ku salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan malaynayaa khudbado badan baa halkan laga yiri marka inaad khudbad kale la dhageysto waxaan malaynayaa loo macil qabo waxa muhiimku ay tahay oo isku sheegaynaa ogtays aanan dee maanta wada ognahayba waa doorka bangiyada iyo financial institutionka taasi runtii waa aad baa looga wada dheragsan yahay loogana wada dhawaajiyey ra-iisul wasaaruhuna ogtay si qurux badan ayuu markaasi u sheegay bangiga gudoomiyuhuna waa inoo sharaxeen iyo dhammaan wasiirka iyo intii hadashayba marka runtii anagu haddaan wasaaradda maaliyadaan nahay waxaan ognahay maaliyaddu sideedu waxay ku tiirsan tahay waa bunuugta iyo institutionska maaliyadeed wey isku bah waynu nahay horta dhammaanteen waxaanu ka shaqaynaynaa bahda maaliyadeynu iyaynu nahay idinka ayaana xoolihii ummadda idinka haya annagu waxaan haynaa cashuurtii shacabka iyo ummadda ayaanu haynaa idinkuna hantidii ummaddaad haysaan marka runtii hantidaasi marka aynoogama baahna inaynu hayne waxay u baahan tahay inaynu aynu kobcino oo ay shaqayso taas u baahanta bangiyada faa'iidadoodu waxa weeye in hantidii iska taalay ama barkinta hoosteeda la gelinayay ama khasnadaha lagu kaydsanayay intay soo kiciso inay dhaqaajiso oo shaqayso taas weeye micnaheedu maaha inay hayso iyaga laftoodu khasnad kale noqdaan oo markaasi kaydisa maaha dee diinkeenuna aad buu uga digay in dahabka iyo fidada iyo dee lacag bay ahaan jireen in la dee iktinaas lagu sameeyo oo la kaydiyo oo la hayo maxaa yeelay dhaqaaluhu wuxuu u samaysan yahay lacagtu inay circulation ay samayso ayay u samaysan tahay waxay la mid tahay sida dhiigga jirka bani aadamka ku wareegayay ka mid tahay iyo la mid tahay dhaqaalaha u tahay circulationkaas wey haddii markaa la xidho xubin haddii la xidho way dhimanaysaa mugta way la dhimanaysaa marka haddii la sameeyo la kaydiyo dhaqaalihii waa dishay markaasi waa dilaysaa marka saas haddii kuna uga digay iktinaaska waxa la yidhaahdo oo islaamkeenu mugta u kuwa kaydsanaya naana ogaadaan ay tahay marka waxaa u baahan nahay markaas inaan lacagtu kaydinne la dhaqaajiyo oo ay ku jirto circulation joogta aad baa runtii dhaqaalaheena waxtar u yeeratay ama transactionkeenaba EVC-da iyo e-dahab iyo because waxay samaynayaan dee transaction degdega maalintii $100 ee lagu shubacay inta jeero wareegayay inta jeero transaction sameeyayba waxay abuuraysaa nolol cusub waxay abuuraysaa profit waxay abuuraysaa dhaqaale cusub waxay abuuraysaa maalgashi cusub waxay abuuraysaa shaqo cusub ayay abuuraysaa marka intaasoo incremental isbiirsaday ayaa waxay samaynaysaa kobcintii dhaqaalaha marka $100 ama $1,000 ee bangi yaalahay waxaa la rabaa inuu shaqeeyo inteeba velocity-ga iyo speedka ay ku socoto lacagtu ayuu koorka dhaqaaluhuna uu la mid yahay oo markaasi ku xidhaya sidaa darteed halkaasi bangiyada dee challenges weyn baa markaasi saara inay lacagtii noqoto deposit la iska hayo inay noqoto waxaweye sidii loogu talagalay ma ujeedadii laga lahaana markaasi ma marka waxaa loo baahan yahay inay bangiyadu runtii ay develop gareeyaan financial products oo cid walba ka jawaabaysa baahidiisa ka jawaabaysa inay sameeyaan oo aanay ku kooban kuwii traditionalka ahaayee la yaqaanay ee dunida kale ka jiray oo inaga aan suuragal ahayn in ay ku koobnaadaan keliya kuwa local context ka turjumaya iyo baahida aynu qabno ka turjumaya dhalinyarteenu qabto entrepreneurskeenu qabaan ganacsatadeenu qabaan ay cid walba qabto ka jawaabaya waana noqdaan saasaa markaas waxaa noqonaysaa movement weyn ay markaas ay sameeyaan marka bangiyada waxaa looga fadhiyaa inay creativity iyo innovation
ay ku daraan oo muxuu ahaayey maskaxshiil badan sameeyaan oo ka jawaabaan baahi waxa la yiraahdaa meel kastoo baahi jirto profit baa taala waxa u baahan tahay baahida inaad ka jawaabi karto oo qofka u baahana uu dantiisii heli karo taasoo bay markaas ku xiranta labadiinaasi haddaad markaas u tagtaan you can generate profit baad ka heli kartaa innaga baahida ina taalahay dalkeena taalahay xuduud ma laha haba yaratay meel kastaba adiga ugu horeeya adaa samaynaya oo markaas wuxuu noqonaya kii markaas wuxuu ahaayey bilaabay midda kalena meelaha muhiimka waxa la yiraahdaa return and risk they go together waa isla socdaan muxuu ahaayey profitka iyo riskiguna waa isla socdaan haddaad moogtahay riski moogtahay avert tahay haddii jeer oo ka digtoon tahay inaad riski iska ilaaliso de markaa profitkaagu ma kordhin markaas waxaad u baahan tahay haddii aad badda kalluumaysi kalluunka inooga buuxo riskina way leedahay waad ku qarqoomi kartaa laakiin waxay u baahan tahay xeeladii iyo farsamadii aad badda kaga ugaarsan lahayd kalluunka kaga soo saari marka meel aan riski jirin horta ma jirto marka waxaan u baahanahay inaynu riskigana fahamno technicalityga lagu minimize garayn karana aynu barano profitka ugu weyn meeshaasu ku jiraaye aynu ka raadino taasi macnaheedu maxay tahay waxa weeye bangiyadu baahida ugu weyn ee qabnaay waa productive sector-ka weyn wax soo saarka weyn meesha ugu baahi badan waa wax soo saar waa cunto weyn 99% ama 99 ba hadayna ka sii badnaynba waxaynu cuno weynu soo roofsanaa dabadday nooga yimaadaan suuragal waxa ah inaynu dalkeenna ka samayno baahi xoog laynuu qabnaa laakiin haddaynu noqono inaynu moogtahay real estate iyo muxuu ahaayey service u gaagaaban aynu gudaha magaalada ka samayno taasi muxuu ahaa dhaqaale u badan kuma kordhiyo inaynu ka baxaynu u baahannahay oynu productive sector-ka maal gashano oo dhallinyaradeenna faraha badan ee muxuu ahaay runtii bilaa shaqiina shaqo abuuraan green houses baad samayn kartaan beeraad samayn kartaan kalluumaysi baad samayn kartaan ee muxuu ahaay food security waa shayga ugu weyn macluusha maanta inoo hayso lacagtiina waynu haysanaa lacagteenu inay ka jawaabto baahidaas ayaa runtii muxuu ahaayey laga maarmaana marka taa inaad ka shaqaysaan runtii waa meelaha ugu muhiimsan wey injiinkii dhaqaajin lahaa waa muxuu ahaa bangiyada wey marka bangiyadu inay marka innovations la yimaadaan productiya ka jawaabaya taa oo sectorskaasi muxuu ahaa productiveka ee muxuu ahaay samayn ee muxuu ka shaqeynaya inay runtii muxuu ahaay ay ka shaqeeyaan aad bay muhiim u tahay bangiyadu the more civilization oo bani aadamku gaadho weeye xadaaradaha meelaha ugu waaweyn in bangiyo la isticmaalo waxay ku soo kordhin karaan cultural change oo ah dadka inay mas-uuliyadda baraan inuu moogtay xoolihiisa beeqaansado inuu bangi isticmaalo inuu muxuu lacag qaato inuu iska soo celin karo inuu maaliyadiisa maamuli karo inuu moogtay responsible noqdo soo garan bangiyadu waxay kobcin karaan inay muxuu ahaa dadku wada responsible noqdaan soo garan oo dhaqan cusub oo civilized markaasi uu samaysmo oo kii markaasi dadaala ee xoolihiisa sidaa u shaqaystaana uu heli karo kii muxuu ahaayey dee doonaya inuu wax dhaco meelahaas ka wareegaana uu losers noqon karo marka therefore inay dhinaca wanaagsan oo muxuu ahaayey dadka u jiheeyaan akhlaaqda wanaagsan ay muxuu ahaayey iyo muxuu dhaqanka wanaagsan aaminaada qof la aamini karo oo mas-uuliyad saari karo oo markaasi uu noqdo waa muhiim marka cultural change inay ku sameeyaan bulshadeena ay isbedesho wey marka runtii waxaan isleeyahay oo muxuu ahaa inay bangiyadeenu dhinaca kale markii la eegana annagu haddaan dowlad ahaan nahay waxaanu ka shaqaynaa runtii waxa weeye waa shuruucda wey waa conducive environment wey waa private sector development waa muxuu ahaayey sideeba regulationskii iyo muxuu ilaalin lahaa banking industry iyo financial industry-ga ilaalin lahaa muxuu ahaa loo sameeyo muxuu ahaa bangigu uu hormood ka yahay annaguna inaanu geyno muxuu ahaa hay'adaha kale oo dhan ee markaasi muxuu ahaa legislationka waa mid muhiim wey marka kaasaan ka shaqeyn laakiin mid baa jirto waxaad moodaa dhaqan ah inaynu shuruucda ka cabsano cabsi inaynu ka qabno
shuruucdiina ka cabsano shuruucda inagayna ilaalinaysaa inagayna mas-uul inaga dhigi kartaa marka the more compliance aad samayso shuruucda aad ilaashato the more responsible muxuuha loo arko haddii laakiin awal daroon la-aan dhacay noqoto oo markaasi aan sidaan doonaba anugu shaqaystee shuruucda iga ilaali ay noqoto dee cid ku aamini kartiyo wax lagu soo hagaagaba heli mayso marka waxaan u baahannahay shuruuc badan baa inaga dhiman oo ah maalgashiga ku saabsan oo arbitrationka ku saabsan haddii cid maal gashato haddaad isqabsataan xaggee loogu muuqday loo garnaqa samaanka muxuu ahaa protection ee muxuu siin karaa waxaasoo dhan waa mugtay shuruucda aynu muxuu ahaa aynu gelinayno in dad fara badan oo maadaama aanan shuruuc haysan laynagu soo gabadana sidaa la sheegay oo ay muxuu ahaa inoo yimaadaan oo ay moogtahay fasahaadiyaan nidaamkeeni iyo mas-uuliyaddeeni iyo dadkeeni iyo nidaamkii dhaqaalo oo dhanba ay fasahaadiyaan taasina khatar bayna gelin kartaa in la iska ilaaliyo u baahanta oo muxuu ahaa la iska kontrolo marka shuruucda in qofkii si xun xoolihiisa u isticmaalaya ama dad ku laynaya ama tuugeeshmada soo dhacay ama adduunyada oo leegsanaysa ay daba ordayso ee muxuu ahaa la raadinayo inuu meesheenan gabaad ka helaay oo inuu kayn moogtahay cidla oo cid waliba soo gali karta aynu noqonaay waxay khatar gelinaysaa inta nadiifta ah ee sida wanaagsan u shaqaysata intaasay halis gelinaysaa marka inaynu ka ilaashanaay waxa weeyaan runtii innaga mas-uuliyad inaga saaranta marka markaynu shuruucda sanctionska ka hadlayno ee qof adduunyada muxuu ahaay mafia oo ama muxuu xashiishad iyo balaayo keen ama bangiya soo jabsaday ama ummada soo laayay inuu yidhaahdo adduunka xaggeed ku gaban kartaa uu yidhaahdo moogtahay halkana aan sharci ka jirin meeshii aan sharci jirin bay imanayaan meeshii sharci qabtaa jirin ayay imanayaan inaynu markaa sharci yeelanaay waa mid innagay iftiinka inoo soo saaraysa innagay protection ina siinaysa danta dalkeennay ilaalinaysa cadowga dowladday inaga ilaalinaysa kuwaynaan ku difaacaynayo haddii layna qabsado oo layna tuhmaba xitaa haddaanan sharci lahayn waxay noqonaysaa waxaan ku dawlo oo ma haysto haddaanan sharciga iiga yaalaaba jirin waxaan ku difaacoon liiska kaga saaro ma haysto marka waxa way sidii doonaa laga yeelayaa markaas marka kii aan dembi lahayn bay ilaalinaysaa kii muxuu ahaay dulmi wadana way naga ilaalinaysaa marka therefore inaynu shuruucda aynu ilaashanana dowladnimadeena aasaasay muxuu ahay u tahay marka inaan ka cabsanayn regulations adduunka oo dhan baa ku dhaqmay waxa weeyaan bani aadamka oo dhan baa tijaabiyey sidaad ku nabadgalaysay ka mid tahay marka waxaan doonaynaa dowlad ahaana inaynu taana iftiinkaas inaynu moogta nidhaahno waanaga laguma jiro mugdigaas gabaal cidna uma lehin waa difaacaynaa dadkeenna dadkiiba waa si sharaf laga ganacsadaan bangiyadeena waxaan doonaynaa inay global financial institutionska ku xidhmaan oo dee wadan isolated ma jiri karo wadan bangiyadan oo dhan waxay u baahan tihiin waxaynu la ganacsanaynaa ayaynu la shaqaysanaynaa waa caalam weeye caalamka intiisa wanaagsan baynu la shaqaysanaynaa marka lama shaqaysan karo bangina kuma aamini karo haddaadan inagu isnadiifin haddaanan kinin ahayn haddaanan compliance lahayn haddaanan sharci ku dhaqano lahayn waxaasoo dhan runtii muxuu ahay ma isma difaaci karo marka meelahaas miyaan laga cabsanin bilakan kusoo gabagabeynaya waxa weeye dowladnimada ayaa ina ilaalin karta dowladnimada ayaa ina ilaalin kartee dowlad la-aan kuma badbaadi karo saas inaynu rumaysano wey dowladda ina ilaalin kartaana waxay u baahan tahay inaynu muxuu ahay shuruucdii iyo waajibaadkii dowladnimona inaynu muxuu ahay gudanno ayay u baahan tahay taasoo ah inaynu muxuu ahay cashuurta bixinno oo aynu muxuu ahay waajibaadka qaran aan ku ilaalinno qarannimadeeda inaynu muxuu ilaalino oo sadad ay la yimaadaan muxuu ahay isagu qofku voluntary inuu la yimaado yidhaahdo intii ugu waajibtay waa tan uu yidhaahdo taasaynu ku ilaalin karnaa haddii kale dee dowladnimo ma jirayso dowlad cashuur la-aan jiri karta miyaa jirta cashuur la-aan dowlad jiri kartaa ma jirto waxay noqonaysaa IDB camp bay noqonaysaa la quudiyay noqonaysaa adduunku taakuleeyo miyay noqonaysaa dowladnimo kuma noqonayso cashuur ay qaado dadkeeda ka qaado u baahanta dadkoodaana ilaashada kaalmada dibaddaana ka helaynaana intii dadkoodu cashuurta ay bixiyeen ceeb bay nagu tahay inagoo dalkeenu qani yahay inaynu muxuu ahaa runtii cashuurta bixin weyno dalkeennana ilaashan weyno oon kaalmo iyo cashuur ummad kale
ay bixiyeen ay muxuu ahaa na soo gaadho na sii lahayno ceeb bay nagu tahay marka taasna ciddii ka saari lahayd idinka waa bangiyada iyo financial sectorka wey ciddii ka saari lahayd marka waxaa idin leeyahay runtii guul iyo gobonimo idin rajaynayaa muxuu ahaay dalkana meel wanaagsan sidii laga dhawaajiyay iyo ku socda laba arrimood baa barwaaqadii naga xiga ilaahay idankii ilaahay baa noo haye waxa weeye inaynu dalkeeno nabad aan helno dal oo muxuu ahaay sharci ku maamusho lagu maamulo iyo muxuu ahaay inaan dayn cafis iyo adduunku meesha godkaa moogtahay dabinkaa uu nagu dhigay beri hore ee la leeyahay moogtahay intaasoo daynaa lagu leeyahay mar haddii lagu leeyahay lagu iska bixin waayena mas-uul ma aha cid wax maal gashan kartaa ma jirto cid wax ku darsan kartaana ma jirto inaynu taana ka baxno ayaynu u baahannahay oonu muxuu aha iska kor qaadno marka labadaa arrimood baynu runtii kaga gudbi karaa aad baan idinku hambalyeynayaa waxaana leeyahay muddadaa yareen ku jirno muxuu ahay isbedelka waxay u baahan tahay adkaysiga u baahan tahay adkaysigeeda u baahan tahay because waxa weeye caafimaadka xanuun baa ka wadhaya soo ma haddii ay moog tahay uu muxuu ahaaye ka soo bax ilaahay naguma keene organ haddii surgery aad u baahan tahay surgerygu dee waa moog tahay waa halkii caafimaadka loo marayay soo ma ya soo dhaqaatiirtaa garanaya soo ma garan haddii moog tahay caafimaadkaagu surgery u baahan yahay surgeryga haddaad ka cabsato tiraahdo maya waa kulu yahay suuxdina ma gelayo jidhkana lama jeexayo sanadkaana ku caafimaado soo ma garan waxaynu u baahannahay adkaysigaa hore ee surgerygaas aynu caafimaadka ugu gudbayno taas weeye dagaalkaan ku jirnaay adkaysigeena muddadaas baynu u baahannahay waana mahadsantihiin